gole keenida fikrada ganacsi oo dhaxalgala ayaa ku timaada riyooyin qarsoona oo noqda kuwa isku bedela dhab. hal abuurkan wuxuu ku soo kordhiyay dalka in qof kasta nasiib u yeelan karo meesha uu joogo inuu ku helo cabitaan qabow oo laga dhaliyay tamarta qorraxda, sidoo kalena heli kara cabitaan laga shiidayo qudaarta wadanka oo tayo leh. Cabdikariin Cabdullaahi Diiriye waa hal abuuraha cabitaanka wareega. waxaan weydiiyay sida ay ugu suura gashay hindisaha fikirka ah inuu soo kordhiyo ka faa'iideysashada dalagga dalka oo loo bedelo cabitaan rasiin ah. ugu dhalatay maadaama aan arkay jidadka Muqdisho oo lagu iibinayo cabitaanada oo cabitaano la qasqasay marka arkay ayaa waxay ugu dhalatay inaan sameeyo cambaha iyo mooska iyo saytuunka iyo canuuniga oo dhammaan dalka ka soo go'ay inaan u shiido. aadu macaya sida u jeedaan waa cabitaan waxaan laga sameeyay qudaar kala duwan. dadku waxay aad u jecel yihiin inay cabaan cabitaanada noocan oo kala ah. waa waxa keenaya dadka halkan buuxa gebi ahaantood inay dalbadaan cabitaanaadka noocan ah. waxayna suuq u yeeshay gaarigan aad aragtaan oo laga sameeyay waxyaabaha la isku geeyay. waxaana inta badan ku magaalka marayo dadku ay ka dalbanayaan inuu istaago si ay biyo cabaan. meel ka soo marayna dadka waxay noqdaan kuwa macaamiil u ah. taana waxay kaliftay in cabitaankan uu noqdo mid aad loo xiiseeyo meel kasta lagu arko. dad badan oo macaamiil ah ayaa ku soo xirmay cabitaanka wareega iyadoo qof kasta uu dooqiisa cabitaan ka helo. waana xulashada qaaska ay keentay inuu helo fikirkan cusub ee ganacsi suuq aan lahayn meel u qaas ah. waxaan maanta la kulmay yar meeshaan ku ganacsanayo biyo waxa uu ku gadaa goobaha laamiyada. waa yar oo shaqo abuur samaystay waana biyo macaan waana cambo iyo moos iyo timir isku shiiday. marka waana soo dhaweynaya ma sha Allah waana shaqo abuur fiican. waxaan biyaan oo meesiya lacag yar oo sidaas u badneen waan 7,000 shilinka Soomaaliga. runaantii aad ayay u macaan yihiin. agabyo kala duwan oo la isugu keenay hal shay waxaa ka dhashay hal abuurkan waxaana ka kooban yahay waxyaabo uu mid kasta ay u baahan yahay in goonidiisa loo hindiso. balse markaan waxaad arkaysaan isagii oo lagu kulmiyay meel qura noqdayna fikir shaqeeya. wuxuu ka kooban yahay mooto 3 lugood leh oo motor saaran yahay oo ku soo degay. qolofkaas uu sameeyay 2 xabo solar oo min 250 watt saaray, battery 150 ampere ku jiro, gas controller ku jiro, inverter ku jira. kadibna mashiinkaas ayaa ku jiro oo sahlay in alaabtii lagu shiido. qorraxda marka hore waxa ka imaanaya tamarta DC ka imaanayso ka bacdina waxay isku bedelaysaa AC markay isku bedesho mashiinada waxaan ku shiideena waxa ku shaqeeyaa AC. markii DC ga AC loo bedelo ayuu geedkan oo AC ahaan ugu shaqeeyaa. milkiilaha leh aragtida cabitaanka wareega naftiisa ayuu u abuuray shaqo, balse shaqada oo u baahan in laga shaqaaleysiyo shaqaale ka badan hal qof waxay fursad shaqo u noqotay 3 dhalinyaro ah oo kale kuwaasoo haatan noloshooda maalinlaha ah ka hela cabitaanka wareega. cabitaankan sameeyaa milka sheegay banana shake su'aadina asaka hal saac meelas 2 saac fiidor markayna noqotana waxayna anoo dhameeyno iska dhaafnaa. alaabtan hadda casriyan hadda soo kordhinay shaqo abuurno in dhalinyarada Soomaaliyeed xataa oo ku taageersanaa ninkan Cabdikariin oo soo kordhiyay shaqada. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagu la noqday shaqo la'aan. qaarkoodna waxay naftooda ku biimeeyeen badaha si ay u helaan shaqo halka wadankooda u baahan yahay awoodooda iyo fikradooda ugubka ah si ay ugu maalgashadaan. dhalinyarada Soomaaliyeed oo badaha ku dhamaanaysa ama tahriibta galaysa ama ma aragtay maana yacliga magaalada u joogta waxaan ku waaninayaa in fikirkan oo kale taa ama mid u dhigma in la yimaadaan ay fahmaan aqligooda ka shaqeeyaan waxna soo saartaan aqligoodana ka shaqeeyaan waxna la yimaadaan dadkoodana ma aragtay u faa'iideeyaan. socod ku shaqayso macaamiishadana ka hel wadada waxa uu noqday fikir laga dhaxlay hal abuurkan ganacsi ee cabitaanka wareega kaasoo helay suuq furan oo lahayn soo hakisa marka laga reebo inuu gobolku u dhaco iyagoo daalan ayna u baahdaan nasino. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.